في قفك أقونين وأبليكيشن شركة هرمود إسكالية هاي أو كوسه لا يلفت هذا إنها كم مرة سي أونلاين أو استعماش وحأركي قف ديود الجرا أو ديود أكو جيد إنه EFC كوصدره وحأركي قف ديود الجرا إنه أكون كوصدره وحسهل لا أبليكيشن كوافي وا EFC جاي أيضا معمولة كرتا وحمعمولة كرتا أكون كاجا وحاسده كلا كم معمولة كرتا إن حوالد وحكو درت أول حوالد اللي تجي جري ساسال عكت اللي دري جري هذا أبليكيشن كده حديث كدري حوالد وحكى له أقوم يهمسن وكو أنفع يوافي وحاول مدن قدومية أنت أنا غفل العكت أدرن وحكوا حقيقينا مجلسوا سدحان مجلسوا سدحان وكو صدره وحكوا له غفك أدروا سد هبل وا هذا أب حقيقي صدق دري وافي مركا أبليكيشن كاس وهاي وافي مركا سود الجين وافي محبوبة هي مركا محبوبة هي إن سمكار لو حرة سمكار كا يوافي سلس لو حرة وحاقصبه إن كود لو صدره أول حقيقي قفك سمكار كاس استعماله أنا أديك تهاي إنكل كودكي مامدي u soo dhacay waxay dhaheen maama koodkii noo soo diray koodkii loo soo diray way geliyeen automatic waxay la wareegeen simkaarkii maamada markay la wareegeen maxaa marka qasab ah EFC-giya dhiman waxa dhiman akoonkiya dhiman baasweeradooda in la helo way u saxsaxdeen way sireen xabadkay dhulka ugu hayeen muddo ay khadka ku hayeen way ka sirsirteen waxay ka heleen lambarkii baasweerkii EFC-ga ka heleen EFC-ga lacag yar oo ku jirtay arkeen waxay ogaadeen marka maamada inay jaban tahay oo kood kasta ay soo sheegi karto waxa la weydiiyay hadana akoonkii ay sheegtay sidaas gudaha loogu galay akoonkeeda ay ku arkeen lacag 10,000 inay ku jirto iyo dheeraad wili marka khadka ku hayaan waxay bilaabeen marka inay lacagti gadiyaan way qaybsadeen 1,200 sida hadda eedeysanaha maxdarka joogo labaad uu sheegay lacagta ku soo aaday wana exbidu ku dheeli waxna kama uusan helin sidoo kale iPhone ku gatay iPhone 14 ku gatay eedeysanaha kale oo lagu qabtay muxuu ahaa iyo hormuud u tagay qaybta xamarweyn u tagay lacag la baxay Tarabiyan u tagay Tarabiyan marka xarun kale ka weyn waa sidaas ayaa lagu qabtay eedeysanaha koobaad isagoo nisa ka tirsan oo shaqal qaran lahaa oo la rabay inuu ka shaqeeyo amniga magaalada ayuu wuxuu u soo jeestay inuu lacagaha la dhaco uu ka soo bixiyo akoonada muxuu ahaa shirkadda hormuud ka soo bixiyo مدن قدومية waxaan rabaa inaan maxkamadda la wadaago $1,220 oo ah lacagtii lagu qabtay eedeysanaha koowaad ee ka tirsan nisa waxaan rabaa in maxkamadda loo gudbiyo mudan gudoomiye inta aan maamada la dhicin akoonkeedii waxa ku jirtay $10,682 waxa hadda seefa oo akoonna ku xaxayran $1,220 waatan hadda la hayo maxkamadda soo gudbinay $2,532 akoonkeeda hadda ku jirta $219 somnada ku xayran tahay iyo $552.25 waxa maqan markii la kala jaray inta la hayo ee inta totalka waxa soo baxay inta maqan marka mudan gudoomiye waa $5,763.25 ayaa ku maqan eedeysanayaasha sida ku cad statementyada Salaama Bank xarraani maxkamaddu aragto hadaba mudan gudoomiye shirkadda Hormuud waxay ka mid tahay shirkadaha telecommunication ka lead gareeya ama hogaamiya waqti badanna Soomaaliya ka soo shaqeysay ilaa haddana ka shaqeyso muddo fog oo xitaa burburkii iyo dagaaladii ay ka shaqeynaysay Soomaaliyana ay ka hormarsiisay dhanka telecommunication-ka baahiyahaas ay ka haqabtirtay sida darteed ay dadka Soomaaliyeed u aamineen lacagahoodii ku darsadeen investment ku sameysteen service-ka ay bixiyaan u isticmaalaan shabakadan eedeysanayaasha mid ka marxuumka ah waxay ugu talagaleen in shirkadda ayagoo isticmaalaya magaceeda ay dadka ku dhacaan taasoo micnaheedu ay tahay in dadkii iyo shirkaddii ay kala dhambaalmaan ama ay kala shakiyaan mar haday sida dhacdana waxa qasaarayso shirkaddii sumcaddii iyo magacii karaamadii ku lahayd Soomaaliya iyo sidoo kale hantidii Soomaaliyeed ay ku jirtay ay hayeen mudan gudoomiye garsooreel maxkamadda sharafta leh si arintaas loogu baaqsado waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa inay tilaabo cad ka qaado eedeysanayaasha sidoo kalena ay ku xukunto $5,763.25 oo maamadaas wili jarka lagu wada ay leedahay ay si ciyaar uga qaateen ay wana kasbid ku dheelay mid kamid ah maxkamaddu waa maasantahay
abuukaate isxaaq cabdulaahi oo eedeysanayaasha u doodayey ayaa isna fadhigan ka sheegay in filimkan atoorihiisa uu geeriyooday inta hartayna laga qaado lacagta lana sii daayo. waa turufo macna yaa sameeyay marka turufada ma waxaa sameeyay maxamed cabdiweli mase waxaa sameeyay cabdiqaadir